runta suugaanta waa khiyaali uu qofku sawirto dabeetana uu bedelo hal abuur. Qamaan Cabdiwaaxid Maxamed baladha waxaan ku dhashay magaalada gobolka Sanaag magaalada Dhahar halkaas aan ku soo barbaaray dugsiga hoose dhexe Boosaaso Secondary School. waxaan kamid ahaa dadkii u hayaamay adigu dibadaha sidoo kale Imaaraadka ayaan ku noolaa muddo 12 sano ah. xiliyadaas waxaan ku soo biiray fanka iyo suugaanta. soo biirday fanka iyo suugaanta wax dhib badan ma ahayn runtii markaan yaraaba anigu fanka iyo waa iska jeclaa oo hees jiray laakiin si heestii ugu horeysay aan sameeyo waxay ahayd hees aniga iyo khusayso oo ku timi xaalad jacayl marka dadka jacaylka u badan baan ahaa. suugaanta jacayl bay ka bilaamatay waxayna ahayd hees la yiraahdo tagto soo ma noqoto heestii ugu horeysay aan sameeyay. heestoona hidhagle waxaan sameeyay 2011 anigoo jooga Imaaraadka Dubai. heestaas waxay iga codsatay gabar fanaanada inaan u sameeyo oo ay markaas nin is guursadeen iyagoo aroos ah markaas iga sheekiyeen jacayl oo dhexdooda martay baan heestaa ka sameeyay. waxaa qaaday Farxiye Fiska laxanka waxaa lahaa Jookle saaxiibkaya sidaas ay heestaas ku timi. wadamac jacayl nafta dhaawaco ani dhaawaco dhalrooga jirkii ruuxiyo qalbiga idhex qaadayo wadnahay dhagle dhag 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 wadnahay dhagle. riwaayadaas waxaa la dhihi jiray intuu maan ku gaajisan yahay guushu waa weli. waxaan ku samaynay dalka Imaaraadka waxaan dhignay 2007 waxaa dhigtay fanaaniinta Dubai Star oo ay weheliyaan fanaaniin dibadda nooga timi oo uu kamid yahay Cabdishire Jaamac Jookle. fanaaniintaas waxaa dhigay waxay ahaan 13 fanaan oo badankooda aad wada garanaysaan. waxay ahayd riwaayad wadaniya oo ka hadlaysa dalkeena burburkii ku dhacay. heesaha riwaayadda ku jiray heesta waxaa wada aktarka iyo aktarada koowaad Jookle iyo Idil bay ahaayeen. waxaa qaada waxa la yiraahdaa waa hees jacayl qoondayso meel kale baa la yiraahdaa. nolosha xuquuq loo qofka lagu ogaadaa sidii ku qadariyay inay yahay qiyaamaha la isuma daqumiye qayrkii daraada adigan daraada wax la qaybsan waay qarka waxaan saarnay inaan galo qabuurto cilmi qoysahan saasuu qaaday. iyaga duruufuhu dadka aragtidiisiyo dadihiya noloshee intan diif jacayl qabo عشقونا دعرتيو دباغديغو يهي دلنبا بيجيسيو ويدور كالقعالكوي لحنكا waxaa sameeyay Jookle ereyada aniga sameeyay waxay ku jirtay riwaayaddan ku sheegay oo la dhaho intuu ma ku gaajisan yahay guushu waa weli. waxaa qaada Axmed Biif aniga sameeyay waxay ka mid tahay heesiisii ugu horeeyay. ubaxay adigu igu arantu shayla nacdi sida awrhayna iyo gaamisi halka adigu wado miyaan ursamaan oo fiya kalgacal eed lama qarshay anigoo adiga ifka kugu jecel. heestan waxaa la dhahaa Farxiyo waxaa qaadashay Mirad Arq laxanka isaga lahaa ereyadana aniga sameeyay. miyaan saxda hurdada miyaan soo jeedarteed salada markii la kaco anigu soo taaganahay samantaada ahay intaan isa seegilayn jacaylkiisu mana sida ayaan looga tegin ada farxiya sidriga sidii ubax uga baxo haween baada u sitii ku soo soco saacaba furan. heesta xariirta la yiraahdaa waxaan u dhiibay in la yiraahdo Cabdulqaadir Saaxil qaadire jacayl
waxaas qabay wiil iyo gabar ku dhashay dadkii khaliijka ku koraya baahan oo aan af Soomaaliga aqoon wiilka ay gabadhaas waxa ii wiilkii oo sheekadaas ila wadaagay wuxuu ii sheegay gabadha inay Abu Dhabi ku wada dhasheen gabadhii iskuursadeen marka qisa isfaham waa oo labadoodii dhex maray oo gabadha oo ay soo aroostay oo meher badan iyo maxaan kula kharash badan oo reeroodu geliyeen baa jiray heesta ereyadeeda ka fahmi doontaan aduu gabadhii telefoonkiisa oo kale bay message ka dirtay iyadoo qof kale oo Arab ay taqaan ka caayisa sidii baa ninkii lagu xiray xarig buu ku galay iyo musaafir waliba marka heestaas qisadaas aan ka sameynay tiyaan xariirtiyo u xiraayay dahabkood xaskaygi noqotaa rumaygu samayso wanigan xaggeedii suugaanta waxay muhiimad u leedahay af Soomaaliga sideedaba inagu waxaan nahay dad ka soo jeeda miyiga suugaanta dhaqankeenana waxay ku salaysan tahay suugaantu waxay ka bilaamataa sideedaba waxay ka bilaamataa ciyaar dhaqameed iyo cayaan sacab waxa ku xigay berigii hore waxaan isticmaalay gabay oo wax soo gudbin jirnay marba jiray aan telefoon jirin taar jirin waxba jirin la isla hadli jirin oo gabay la soo gudbin jiray akhbaaraadka marka laf dhabarta ugu weyn oo ay waligeedba dadka Soomaalida waxa uu ahaa gudbiye ama waxay ku xiriiraan suugaanta oo ahayd sidoo kale gabayga oo ahaa